idil haadsi daawadayaal meel walba naga daawanaysaa daafaha caalamka iyo guud ahaan wadankaba ku soo dhawaada waxaan ku sugannahay magaalada Hargeysa barbarkayga waxa fadhiya Khadiir Mustafa horyaalkii baa soo dhamaaday nasasha lagu jira Khadiir Tanis baan isku helay waxa jiray tartan adag baa la soo galay 18 ciyaarood ka koobnaa 18 wiil la soo ciyaaray badiba indhaha caalamka yahay guud ahaan gobolada laga qabtay balse ka caasimad uu xiiso gooniya lahaa Khadiir Mustafa iyo tiimkiisu waxay galeen kaalinta labaad isagu gool dhalinta ay ku guuleystay koob iyo 20 gool ay ku qaaday gool dhalinta iyadoo ciyaartii ugu dambeysay wada ciyaareen kooxda iyadoo ku guuleystay horyaalka balse ciyaartii ku soo xigay oo kooxdaasi ka tirsanaa isna ku guuleystay 16 gool haddaba Khadiir ayaa chance soo helay waa ciyaaryahanka kaliya la hubo abaalmarintiisa habeenka la wada sugayay ee Hargeysa lagu qaban doono munaasabada weyn ee lagu abaalmarin doono tartankii guuleystayaashii Khadiir wuxuu ku guuleystay gool dhalinta waa markii ugu horeysay horyaal rasmi ah si official loo diiwaan geliyo uu ka qabsamo caasimada Hargeysa nasiib buu helay walaal badan uu saxada kubadda cagta ku soo jiray Khadiir baan ku wareejinayaa Khadiir ku soo dhawow ugu horeyn bal sidaad u arkaysay tartankii dhamaaday gool dhalintaad hogaaminaysay dad badan ay daafaha caalamka iyo guud ahaan wadankaba meel kala duwan ay kaga soo hambalyeynayeen sidabaad adigu u arkaysay marka hore barnaamijkan aad iyo aad baan ugu dhowahay uu daadayaha ka yahay walaalkan Sikariye hal door sida loo garan og yahay aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa walaal sida sharafta leh aad imaamustay waqtigaaga ay siisay talabaad haddaan ka hadlo horyaalkii dhamaaday markii ugu horeysay horta intaan kubadda cagta ciyaareynay ama si rasmi ah sidaas sheegtay horyaal sax la qabto waqti badan waqti adag buu lahaa waqti kulul buu lahaa waqti qabow buu lahaa waqti walba isku jiray marxalado badan iyo waqtiyo badan baanu ku soo barannay maadaama ay ahayd markii ugu horeysay horyaal rasmi ah oo anagu ciyaarno aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay in horyaalkii ugu horeeyay ee la qabto aan gool dhalintiisa ku guuleysto wax yar ma aha horta in gool dhalin lagu guuleystaa waxa weeyaan waa min bilow ilaa min dhamaad marka in match ugu horeeyay ee kooxdeeda aanu ciyaarana goolka furitaanka ee horyaalka aan ku bilownay aan u dhaliyo goolka ugu dambeeyay ee horyaalku markuu dhamaaday lastigii lagu xidheeyna aan kooxdeeda goolka ugu dambeeyay u dhaliyo taalaftarkeeda ayaa way farxada championkii baa la tagaya magaaladii Berbera oo la isugu iman doono muddo 19 cisho lagu sugnaan doono guud ahaan gobolada badankoodu way ka soo qayb galayaan kooxdiinu kaalinta labaad bay ku jirtay kooxaha ka qayb galaya ka mid ah koox ahaan diyaar garowgeena maxay ka qorshaysan waa markii ugu horeysay champion ka qayb galaysid shakhsiyan maxay ka qorshaysan dawladda hoose ahaan iyo Khadiir ahaanba horta Ilaahay baa mahad leh wax weeyaan waa champion iyo koobkani wax weeyaan goboladoo dhan baa ayaa ciyaaraya gobol walba kooxdii ku soo guuleysatay Hargeysana 3 kooxood baa ka tagay sida la sheegay marka waxaanu chance u helnay mar labaad inaanu tartanka ka qayb galno marka maadaama tartankii dhamaaday horyaalkii la naga guuleystay aad iyo aad baan u hambalyeynaya kooxdii ku guuleysatay ciidanka booliska hambalyeey baan leeyahay tiimka ku guuleystay marka laga tago waxaanu chance u haysanaa imka in tartan labaad aanu ka wada qayb galno kulli waxaan leeyahay barbarka ka baxda oo bakal qaleen diyaar waxaan u nahay insha Allah inaan koobkan sidaan ugu guuleysan lahayn iyo dadaalkeedii iyo juhdigeedii baysan u galin lahayn insha Allah tartanka ku guuleysano shakhsi ahaanna diyaar baan u ahay tartanka iyo tiimkayguba inaan ku guuleysano Ilaahayna xaq rajayna Ilaahayna u guuleeyo wad ogtahay wadankeena caqabadaha iska haysta dhalinyarada adiga waxa ka caawiya tababarada faraha badan leh garoonka bandhigyada kala duwan ku soo bandhigto shakhsiyan waxa ka saacido wad islaada waa su'aal muhiim ah wax badan baa caqabado badan baa iska jira walow kubaddu imika ay sidii hore ahayn bariga hore waqti adag bay dadku soo mareen kooxo kubadda lama heli jirin garoon lama heli jirin haddana alxamdulillah ku isdhaantaa markii sanad dhan imka horyaal la ciyaarayo marka horta tiim ahaana tiimkayga oo mar walba iyaguna garab taagan on halkan mar walba ka dhiirigelinayo sidii ay iyaguna horumarin lahaayeen iyo ta shakhsi ahaan anigoo dadaalkayga aniguna laba jibaaraya mar walba family-ga laftarkeeda haddaan ka qayb qaato family-ga isaguna mar walba garab taagan yahay oo ay diyaar u yihiin inaan iyaguna ciyaaro khaasatan reerkayga aad iyo aad baan iyagana u soo dhaweeyay carruurta dad badan baa oginaad aabba ahayn oo bal dhaweyto lagu warhelay oo adigu laba carruur labadaada inaad baliyada qudheedana inaad aabba tahay carruurta intay ka kooban tahay bariga dadkana la wadaagto dad badan oo taageero ku aaba jira ma sha Allah aad iyo aad baan u soo dhaweynay horta taageerayaashooda meel kasta oo ay joogaan mar walbana waan inay dhiirigeliyaan inay garab taagan yihiin
aad baan ugu mahadcelinayaa meel wali joogaan taageerayaasheedu anigu waxaas baan leeyahay caruur 5 caruur baan haystaa marka waxaan leeyahay dadka cidii muxuu ahaayay taageerayaashaada sida hawlo dadka qaar waxay aaminsan yihiin markuu aaba noqdo noloshu ay ku adkaataa kubadda iyo inuu chance badan u helo taadu sidee waad uga gudubtay caqabada horta markayga hore baan sportsman intaan kubaddan ka hor waxaan ciyaari jiray Hafayoko marka maadaama marka horeba aan Hafayoko ciyaari jiray markii dambena kubadda aan ciyaarayay markii dambe xasiinada sportskii baan sideedii ugu soo dhex jiray taasaan kaga gudbay caqabadahan kaga gudbay kamida iyada qudheeda waxa la oran karaa baraha bulshadu waa dadka waxyaabaha aad ula haray qofku inuu baraha bulshada habeenkii in badan uu isticmaalo waqti badan ay qalumiso ciyaartoydana sida loo yahay ay ku jirto habeenka ciyaar leeyahay fiil la siixiyo la siinasiyo adigu baraha bulshada isticmaashid sida waraysi hore ka qaadaad ku shaacisay team maxay iska bedelay ma koona cusub baad samaysatay maxay iska bedelay muddo sanado baan si kala maqneen waraysiga ka hor horta waa runta barnaamijka ugu dambeeyay adiga ayaa iga waraystay inaan social media isticmaalina halkaas aan ku cadaynay imka laftirkeeda waxa jira akoono badan oo dad badan samaysteen imka TikTok wax la yiraahdo kale dad badan baa jiro markay magaalada iga soo baxaan i weydiiyay gura ma TikTok baad samaysatay marka waxaan ku sheegayaa horta Sikriyo inaanan wax TikTok iyo Facebook toona inaanan lahayn oo waxaan isticmaalaa sidii hore baan kugu sheegay aan jirin marka akoono badan magacyada lagu samaystaa halka waxaan fariin uga daraysaa dadka badan magacaaga isticmaala horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka magacayga isticmaala maadaama horta magacayga ay jeclaystaan laakiin waxaan u sheegayaa horta waxaan u sheegayaa inaanan waxaan social media isticmaalaa WhatsApp ma ka isticmaala kaliya wax kale oo isticmaala ma jirto sidaan horeba kugu sheegay marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxa ku tiiday dad badan baa isweydiinaya chance mumu waayin waa wiil dhalinyaro telefoon smartphone uu sitaa waxa ka hor taagan wallahi sideeda anigu maan iga soo goyn horta qofku waxa uu xiiseynaya inta badan isticmaalaa maadaama tartankii dhamaaday goldanintii adigu aad ku guuleysatay juhdiyo dadaal badan aad u gashay waxa loo tartan adag loogu jira laacibtinimada maadaama goldanintii aad ku guuleysatay taasi ma ku fududeyn kartaa inaad ku guuleysato laacibtinimada adiga sadama intee leeg baa kaaga jira inaad isleedahay mar wad noqotaa best player ka tartanka horta Sikriyo su'aashaas waa su'aal aad iyo aad muhiim u walaal waa run dabcan waan ku guuleystay goldanintii horyaalka marka la eego horta laga hadlayo laacibka tartanka rajo weyn baan ka qabaa inaan ku guuleysto laacibka tartanka because waxay diiday ma jiro marka la eego tartanka horyaalka bilowgiisii ilaa dhamaadkiisii qiimeyn baa la qiimeynayaa oo qofka wax la qiimeynayaa game wala oo ciyaaray muxuu qabtay muxuu soo bandhigay waxyaabo badan oo la qiimeynaya baa jira marka loo eego horyaalkii dhamaaday ismeelihii shaqo yar baad ka qabatay markaas la jilgad rajo weyn baan ka qabaa inaan ku guuleysto laacibka tartanka rikoor cusub aad dhigtay oo marka 10 kooxood aad tartanka ka qayb galiyay taada marka laga tago sagaalka kaleba shabagooda wad booqatay horyaalada daba ma adkaan doontaa in ciyaartoy uu sameeyo rikoorkaas oo kale si wax ku xiran ma noqon doonta adigu aad bilowday horta su'aashaadaan isku dayo walaal waa su'aal muhiim ah waana horta wax si marka loo eego waa wax adag in ciyaartoy koox walba shabakada booqdo waa team waliba wuxuu ku xisaabtamaya ciyaarta ka dambeysa marka 3 ciyaarood ama 4 kooxood ka dhaliso kooxaha dambe waxay ku xisaabtamayaan inay shabakooda ka ilaashadaan marka waa wax la sameyn karo insha Allah jiilka dambe inaan rajaynayo inay 18 ciyaarood xiriiraba in waxaan rajaynayaa ciyaartoy badan oo iga dambaysa soo baxaan 18 ciyaarood horyaalka la ciyaarayo shabakada si rasmi ah u booqdaan taasaan rajaynayaa laakiin marka loo eego horyaalkan imka noogu horeeyay caqabadaha ayna hortaagan iyo waqtiga iyo bilowga iyo horyaaladii oo waqti horeyna hore soo ciyaaray marka loo fiiriyo kulli waa wax adag in koox walba shabakada la taabtaa markaan waa rikoodhadan sida khaaska ugu xisaabtamayo ay kamid ugu dambeyn taageerayaashaada marba ku support gareeya ugu dambeyntii inagoo ku jirna gabagabadii barnaamijka taageerayaal badan baad leedahay kubadda cagta imka baraha bulshada adigu loo isticmaalaa dalka jira ka taageera maanta halkan si toos ah inooga daawanayaan ugu dambeyntii maxaad fariin ka marinaysaa wada horta taageerayaasheedu waa kuwa ugu muhiimsan taageerayaasha laba kala qaadanaa mid waa taageerayaasha si shakhsiyana oo taageera midna waa taageerayaasha kooxdayda taageera
taageerayaasha kooxdeeda taageeraha ayaan marka hore mudnaanta siinaya aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba Somaliland meel walba ka joogtaan iyo adduunkaba nimo badan oo laacibino kooxdeeda soo maray baa jiro si hiiliyo hooba kooxda u garab taagan marka taageerayaasha kooxda dowladda hoose aad iyo aad baad u mahadsantihiin balay meel walba joogtaan waan idin salaamayaa taageerayaasheeda khaaska ah oo sida gaarka ay dhiirigeliya sida gaarka ay taageera sida gaarka ay jecel iyagana aad iyo aad baan u mahadsantihiin Allah idin sharfo inta ay in ka badanba ayaan leeyahay kani wuxuu ahaa Khadiir Mustafa oo aan maanta waraysi channel soo helay intaynu ku kulmayno mid kan lamid ah aniga iyo Maazim iyo Khadiir waxaan kaga tagnaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh